ardaydan oo tirahan gaaraya 321 arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ka qalin jabiyay 6 kuliyadood oo kamid ah kuliyadaha lagu dhigo jaamacadda Bariga Afrika. munaasabada qalin jabinta ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda ee magaalada Boosaaso waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Puntland waxgarad maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Bariga Afrika. Dr. Aadan Sheekh Doon Cali oo ah gudoomiyaha jaamacadda Bariga Afrika ayaa ugu horeyn sheegay in markii ugu horeysay ay jaamacadda ka baxeen arday baratay cilmiga caafimaadka. waxaa nasiib wanaag noo ah in 3 kuliyadood ka mid ah ay tahay markii ugu horeysay oo laga qalin jabiyo sida kuliyadda medicine-ka oo ah markii ugu horeysay dhakhaatiir wax ku baratay dalka gudihiisa aynu soo saaro. waxaa sidoo kale yana aad iyo aad qiimo weyn u leh inaynu xeer yaqaano ama dad yaqaana sharciga qaanuunka yaqaana dafcada ugu horeysay iyagana inaynu soo saaro maanta. waxaa sidoo kale tayana ah dafcada ugu horeysay oo dhaqaalaha baratay marajayna in badan dhaqaalaha ku biiriso. waxa kale oo horey uga soo bixi jiray haddana laga qalin jabiyay kuliyadaha waxbarashada shariica iyo diraasaadka islaamiga iyo computer science-ka oo iyana maanta arday badan ka joogto. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax ayaa dhankiisa xusay in wasaaraddu dejisay siyaasad lagu hagaayo tacliinta sare. siyaasadda wasaaradda ee ku aadan tacliinta sare waxa kamid ah kow in la helo siyaasad tacliin sare oo la dejiyo oo lagu dhiso baahida tacliinta sare. siyaasaddaas oo runtii jaamacadu ka qayb qaateen haddana diyaarsan oo insha Allah taala in la horgeeyo golayaasha dawladda u diyaarsan. waxa kale oo kamid ah waxyaalaha ay wasaaraddu ugu talagashay tacliinta sare in la asaaso guddigii tacliinta sare ama Commission for Higher Education guddigaas oo regulate gareynaya tacliinta sare dalka ka jirta. wasiirka caafimaadka dawladda Puntland Dr. Saadiq Enow ayaa ka soo hambaliyo oo la wadaagay ardayda qalin jabisay waxa uu ka hadlay baahida loo qabo dhalinyaro aqoon-yahan ah oo dalka u soo baxa. marxalad noloshiina kamid ah baad ka gudubteen laakiin marxaladihii dhabta ahaa inta waa la idin diyaarinayay maanta bateri shixnadaysan baatiin waxa la idin ka rabaa hadaba wixii la idin diyaarinayay waalidow aruurtiinii wax bartay laakiin u diyaariya bi'adii ay ku shaqeyn lahaayeen bi'ad mujtamac isjecel bi'ad mujtamac nabada bi'ad mujtamac higsanaya horay ee aan gadaal u socon. waa dafcadii 14aad ee ka baxda jaamacadda Bariga Afrika tan iyo markii laga hirgeliyay deegaanada Puntland. Maxamed Maxamuud Saciid Maxamed Madani Universal TV Boosaaso.